waxa sax ka dhigay Itoobiya kaga u gudba waxa sax ka dhigay ee xaraan ka dhigay ninka Soomaaliya u taga mucaarad la gala ee ciidamo ku urursada taas waa mid la yaab leh talabaad wasiirka gaashaandhigga Hargeysa waanagii saragnay iyo fulay iyo kalma dhexdooda waanagii kugu qabtay anigoo ixtiraamaya beesha warsangeli waanagii ku hor iska orod ina kaahin baan doonay inta koolitaas ay ahayd imankana anigu warsangeli waxba oran maayo waxna u geysan maayo dhulka iyo deegaantuba waa naga dhaxaysaa adiguna dhulka yagii waad soo martay aan deganayn aniguna waa dhex maraa waxna uma geysto waxba uma geysto waayo dhulka naga dhaxaya deegaantuna naga dhaxaysaa dhulka aad soo marto ee u soo marto markaad ka timaado Hargeysa cid baa leh beeraa leh dadkuna waa qoliyo askarta waxba oran maayo soconaysa waayo waa askartaydii dulmigu baa loo iftiiminaya dadka markii aan dhex maray abaar iyo biyalaan baa haysatay caalamkana waanu sheegay dagaal kuma tagin waa taas oo ciidamo lagu soo raray alright inta ka bacdi wasiirka waxaan leeyahay markaad warsangeli wax u qabato aad saraakiisha warsangeli faamos ka dhigto kalama digto kuwa Muusabixi ayaan kula hadlayaa doona hadii alla yiraahdo way sababtaa ina macallin iyo Cabdirasaaq bad horgal ka soo dhigay oo aan baabuur lahayn Xuseen Dheeraanoga oo guutada 93 haysta xaylaan ogahay wuxuu ku guuro ciidankaan ogahay inay zabaara ku dhaansadaan markaad u qabato iyaga ayaad wasiir noqon doontaa hadii alla yiraahdo kana turjumi doontaa arrimahooda intaasina waa inta beesha warsangeli waxaan leeyahay anigu horseedu ma yihi dagaal horseedu ma yihi beesha warsangelina waxba igama haysato lana dagaalami maayo waxna u geysan maayo ninka la dagaalamaya waa ninka maanta intuu soo dhoobay ciidan yube tignika soo dhoobay dawadiisa soo qaatay dul fadhiya yaa keenay dhibaatada isaga keenay dulmi weeyi abaar baa haysato iskuulo ma leh MCH ma leh arrimaha bulshada faaq ka yihiin haddana wax doonayeen inuu xoog ku qabsado dhici mayso anagoo la degan dowladda Puntland waajibka qaadato ma ka qaadan doonaa hadii alla yiraahdo insha Allah tay ka qaadato ma ka qaadan doonaa